السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدي داوديال barnaamijkeena caawa waxaynu kusoo qaadan doonaa taariikh nololeedkii madaxweynaha dalka Burkina Faso Ibrahim Traoré. haddaba maruu la hadlayay boqolaal kun oo ka mid ah shacabka Burkina Faso ayaa waxa uu yidhi hadalkiisina wuxuu ahaa sidan: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idinku salaamayaa anigoo aan ahayn madaxweynaha dalka Burkina Faso balse ah shakhsi caadi ah. waxaan ka sheekayn doonaa noloshaydii iyo su'aalihii la weydiiyey. haddaba su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa sidaan ku qaatay diinta islaamka. haddaba tani waa safar dheer ee aan idiin bilaabo. safarkaygana wuxuu kasoo bilaabmayaa yaraantaydii. waxaan ahaa mid ku nool dalka Burkina Faso. waxaanu ahayn qoys sabool ah, kuwaas oo ay noloshoodu aad iska adag tahay. runtii waqtigii yaraantaydii waxaa madaxayga ka guuxayay su'aalo aad u fara badan. su'aalahaasna waxaa ugu muhiimsanaa sababta keentay inaan noqono dal sabool ah iyo bulsho sabool ah. su'aalahaasi iyagoo madaxayga ka guuxayaan ayaa waxaa dhacday inaan noqdo kuna biro ciidanka. maalin habeen ayaa waxaa dhacay in uu dhacay dagaal, kuwaas oo ay nagu soo qaadeen argagixisadu. waxaa dhinacayga ku geeriyooday 4 ka mid saaxiibadaydaas. mid ka mid ah ayaa ahaa mid aysan wax cabsi ka muuqan wejigiisa waqtigiisii dhimashada. sababta ayaa ahayd wuxuu haystay diinta islaamka, wuxuu akhriyay qur'aan. weligii ma arag qof dhimanaya oo wejigiisa wax cabsi ka muuqan. su'aal ayaana weydiiyey oo ahayd, madow ma cabsanaysid miya? waxaanu igu yidhi, maya ma cabsanayo, waayo markii horena allah ayaan u noolaa, haddana isaga ayaan xaggiisa aadi doonaa. sidaas ayaan ku geeriyooday. haddaba dhacdadaasi waxay igu kaliftay inaan sameeyo research iyo baaritaan, taas oo markii dambe igu qasabtay inaan qaato diinta islaamka. waxaan ogaaday waxyaabo fara badan oo aysan i barin macallimiinteeda, hadduu ahaa kii dhaqaalaha, juqraafiga, sayniska iyo tiknoolajiyadda. dhammaan waxaan qaatay shahaadada oo ah halka laga soo galo diinta islaamka. waxaan ahaa mid tukada salaada. qur-aanka waxaan ku akhriyi jiray faransiis, balse markii dambe waxaan bartay inaan ku akhriyo carabi. waxaan ahaa mid ku dadaala barashada diinta. runtii markii aan qaatay diinta islaamka ayaan dhex galay, waxaan ogaaday amase aan xaqiiqsaday sababtuu saaxiibkay uu ahaa mid aanu cabsanayn. markaad tahay qof qaata sharciga islaamka, waxaad noqonaysaa qof aaminsan inuu jiro hal ilaah, kaas oo wax walba ay gacantiisa ku jiraan, lehna awoodda isbedelada, leh go'aamada iyo dhammaan waxa ka socda dunida. runtii hadda ma jirto wax cabsi ah oo iga haysa. dhammaan shuruucaha ay bini'aadamku samaysteen, ha ahaado ka qaramada midoobay, ha ahaado ka qaaradda Afrika, ha ahaado ka hay'adaha ay ku dhaqmaan, dhammaantood maaha qaar cabsi igu haya, balse waxaa cabsi igu haya allah subxaanahu wa tacaala oo qura. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.